markii isxaaq gaboobay oo ay indhihiisii u arag darnaayeen si uusan waxba arki karin ayuu u yeedhay wiilkiisii weynaa oo ceesow ahaa oo wuxuu ku yidhi wiilkaygiiyow isaguna wuxuu yidhi waa ekan markaasuu yidhi bal eeg haatan waan gaboobay garana maayo maalinta dhimashadayda sidaa daraaddeed waan ku baryayaae qaado hubkaaga gabooyahaaga iyo qaansadaada oo duurka u bax oo hilib ugaadheed ii keen oo ii samee hilib macaan oo ah kan aan jeclahay oo ii keen aan cune inay naftaydu kuu ducayso intaanan dhiman rebaqaahna way maqashay markii isxaaq la hadlay wiilkiisii ceesowna duurkuu u kacay inuu ugaadh soo dilo oo u keeno markaasay rebaqah la hadashay wiilkeedii yacquub oo tidhi waxaan maqlay aabbaha oo la hadlaya walaalkaa ceesow isagoo leh hilib ugaadheed ii keen oo ii samee hilib macaan aan cune oo aan kugu duceeyey rabbiga hortiis intaanan dhimane haddaba sidaa daraaddeed wiilkaygiiyow codkaaga u addeec sida aan kugu amro bal adhiga u kac oo iiga keen 2 waxar oo wanaagsan oo waxaan aabbaha uga samayn hilib macaan oo ah kan uu jecel yahay adna aabbaha waad u geyn doontaa inuu cuno si uu kugu duceeyo intuusan dhiman yacquubna wuxuu hooyadiis rebeqa ku yidhi walaalkay ceesow waa nin xaad badan anna waxaan ahay nin xaad yar mindhaa aabbahay waa i taaban doonaa oo markaasaan ula ekaan doonaa khaa'in oo habaar baan isu soo jiidi doonaa ducase ma heli doono oo hooyadiis baa ku tidhi wiilkaygiiyow habaarkaagu aniga ha igu dhaco codkayga uun addeec oo orod oo ii keen iyaga markaasuu tegey oo soo kaxeeyey oo u keenay hooyadiisna waxay samaysay hilib macaan oo ah sidii kii aabbihiis jeclaa markaasaa rebaqah waxay soo qaadday dharkii wanaagsanaa oo wiilkeedii weynaa oo ahaa ceesow oo ay guriga ku haysay oo waxay u xidhay wiilkeedii yaraa oo ahaa yacquub markaasay waxarihii hargahoodii ku xidhay gacmihiisii iyo intii aan xadda lahayn oo luquntiisii markaasay hilibkii macaanaa iyo kibistii ay diyaarisay u dhiibtay wiilkeedii yacquub kolkaasuu aabbihiis u yimid oo yidhi aabbow isna wuxuu yidhi waa kan kumaad tahay wiilkaygiiyow yacquubna wuxuu aabbihiis ku yidhi waxaan ahay curadkaagii ceesow waan sameeyey sidii aad igu amartay haddaba waan ku baryayaaye kac oo fadhiiso oo cun hilibkaygan ugaadheed si aad iigu ducayso isxaaqna wuxuu wiilkiisii ku yidhi wiilkaygiiyow sidee baad dhaqso ugu soo heshay isna wuxuu yidhi maxaa yeelay rabbiga ah ilaahaaga ayaa ii keenay isxaaqna wuxuu yacquub ku yidhi soo dhowow waan ku baryayaaye aan ku taabte wiilkaygiiyow bal inaad tahay wiilkaygii ceesow iyo in kale yacquubna waa u dhowaaday aabbihiis isxaaq markaasuu taabtay oo yidhi codku waa codka yacquub gacmuhuse waa gacmihii ceesow mana uu garanaynin maxaa yeelay gacmihiisu xaad miidhan bay ahaayeen sidii gacmihii walaalkiis ceesow sidaas daraaddeed wuu u duceeyey kolkaasuu yidhi war ma tahay wiilkaygii ceesow qudhidiisii isna wuxuu yidhi waan ahay markaasuu ku yidhi bal ii soo dhowee aan cuna wiilkayga hilibkiisa ugaadheen si aan kuugu duceeyo kolkaasuu u soo dhoweeyey oo isna wuu cunay oo wuxuu kaloo u keenay khamri wuuna cabbay markaasaa aabbihiis isxaaq ku yidhi bal ii soo dhowow oo idhunko wiilkaygiiyow isna wuu u soo dhowaaday oo wuu dhunkaday markaasuu ursaday dharkiisa wuuna u duceeyey oo yidhi bal eeg urta wiilkaygu waa sida urta duurka rabbigu barakeeyey ilaahu ha ku siiyo sayaxa samada ee barwaaqada dhulka iyo hadhuudh
iyo qamri badan. dadyowgu ha ku adeegeen, qurumuhuna ha kuu sujuudeen. walaalaha sayid u noqo, wiilasha hooyadaana ha kuu sujuudeen. ha inkaarnaado ku kasta oo ku inkaara, ha ducaysnaado ku kasta oo kuu duceeya. markii isxaaq dhammeeyey ducadii uu yacquub u ducaynayey, yacquubna ka tegay aabbihiis, ayaa walaalkiis ceesow ka yimid ugaadhsigii, oo isna hilib macaan buu sameeyey oo u keenay aabbihiis. oo wuxuu ku yidhi aabbihiis, aabbow kac oo cun hilibkaygan ugaadheed si aad iigu ducayso. markaasaa aabbihiis isxaaq ku yidhi, kumaad tahay? isna wuxuu yidhi, waxaan ahay wiilkaaga ah, curadkaada ceesow. markaasuu isxaaq aad iyo aad u gariiray oo yidhi, deeyuu ahaa haddaba kii intuu hilib ugaadheed soo qaaday ii keenay, oo aan kulli cunay intaadan iman ka hor, oo aan u duceeyey, kaasu wuu ducaysnaan doonaa. ceesowna markuu maqlay hadalkii aabbihiis, ayuu ku dhawaaqay dhawaaq aad iyo aad u weyn oo daran, oo wuxuu aabbihiis ku yidhi, aabbahayow, anigana ii ducee. isna wuxuu yidhi, walaalkaabaa khiyaano iila yimid oo ducadaadii qaatay. oo wuxuu yidhi, miyaanay ku habboonayn in magaciisa loo bixiyo yacquub, waayo labadan goor buu i khiyaaneeyey. curadnimadaydii buu qaatay, haatanna wuxuu qaatay ducadaydii. oo wuxuu yidhi, miyaadan duco ii reebin? isxaaqna wuu jawaabay oo wuxuu ceesow ku yidhi, bal eeg, waxaan isaga ka dhigay sayidkaagii. walaalihiis oo dhanna waxaan u siiyey isaga inay addoommo u noqdaan. haruun iyo khamrina waan u ballanqaaday. maxaan haddaba adiga kuu sameeyaa, wiilkaygiiyow? ceesowna wuxuu aabbihiis ku yidhi, aabbahayow, ducadaadu ma mid keliyabaah? ii ducee anigana sidoo kale. aabbow. markaasuu ceesow aad u qayliyey oo ooyey. markaasaa aabbihiis isxaaq u jawaabay oo ku yidhi, bal eeg, rugtaadu waxay ahaan doontaa meel ka baxsan dhulka, barwaaqadiisa iyo sayaxa samada sare ka yimaadda. oo waxaad ku noolaan doontaa seeftaada, walaalkaana waad u adeegi doontaa. oo waxaad dhici doonta markaad xukunka qabsato inaad harqoodkiisa surkaaga ka tuuri doonto. ceesowna wuxuu yacquub u nabcaaday ducadii aabbihiis ugu duceeyey aawadeed. ceesowna wuxuu isku yidhi, maalmihii aabbahay loo barooran lahaa waa dhow yihiin, dabadeedna waan dili doonaa walaalkay yacquub. rabeqahna waxaa loo sheegay hadalkii wiilkeedii weynaa oo ahaa ceesow. markaasay intay u cadartay u yeedhay wiilkeedii yaraa oo ahaa yacquub, oo waxay ku tidhi isagii, bal eeg, walaalkaa ceesow wuxuu isku qalbi qabowjiyaa talo jidhka uu ku tala jiro inuu ku dilo. haddaba sidaa daraaddeed, wiilkaygiiyow, codkayga addeec. kac oo u carar walaalkay laabaan xagga haaraan, oo dhowr maalmood isaga la joog, ilaa walaalkaa ciilku ka ba'ayo, iyo ilaa walaalkaa cadhaduu kuu qabo ka ba'ayso, oo uu ka iloobayo wixii aad ku samaysay. dabadeedna waan kuu soo ceddiri doonaa, oo halkaasaan kaa soo kaxayn doonaa. maxaa labadiinnaba isku maalin idiin waayaya? rabaaqahna waxay isxaaq ku tidhi, naftaydu waa rafaadsan tahay gabdhaha reexeed dartood. haddii yacquub naa ka guursado gabdhaha reexeed oo kuwan oo kale ah, kuwaas oo ah gabdhaha waddanka, noloshaydu maxay igu taraysaa?